الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يعني هالرين ماملك جامعاتك iyo macallimiinta iyo ardadaba iyo dadweynaha kaleba waa mahadnaqayaa waqtigoos ka kooban darsiga lagu talagalay maanta wuxuu yahay huwiyatul muslim fi zaman al-awlama qofka muslimka baadisoociisa ama aqoonsigiisa ama sumadiisa waqtigan cawlamadu globalization waqtiga kan dunidu isu furantay midka qura noqotay erayga alhuwiya fi luga alcarabiya min huwa baa laga soo qaaday waa masdar ama ism mansuub u ah ilaa huwa bay yidhaahdaan waa masdar sanaaciya waxaa looga dan leeyuun xaqiiqatu shay في علم الفلسفة أنا الهوية وحي كنت المامان حقيقة الشيء أو الشخص التي تميزه عن غيره شيء ذات ديسة أما حقيقة ديسة أما قفك بني آدم كا وحقار كيالة مركا هوية دا الشرحيان مرنا وحل الشرحة قف هوية دي وحل يسويديا قفك بني آدم كا محادتك انت كالك الصعة مثلا waraaqan yaryar aqoonsigaynu sidana waxa loogu talagalay 7 bilyan ee dunida ku nool in laga dhex garto 7 bilyan ee bini'aadamka ee dunida ku nool wax kula ID inaanay jirin basamaadkaaga inuu wato suulkaaga saxeexaaga ama indhahaaga ama waxunaad kaga soocantay aadanaha intiisa kale marka wuxuu sheegayaa manant kuma tahay مرنا waxay ka waramaan alhuwiya ijtimaaciya bulsho waxay kaga soocantay bulshooyinka kale dad meel degaan leh ama mabaadi' leh maxay kaga gadisan yihiin dunida inteeda kale bulsho ahaan qoomiyad ahaan dhaqan ahaan diin ahaan luqa ahaan akhlaaq ahaan values ahaan iyo qiyamka ay leeyihiin maxay kaga soocan yihiin dunida inteeda kale sida ogeed bay ummad waliba waxay aad uga fakartaa oo la yiraahdaa manahijta tacliimiga waxyaabaha ay u unkantay kamid ah cilmiga qoro uma unkane waxay u unkantay labaad oo loo sameeyay inay bulshada huwiyadeeda ilaaliso bulshada dadnimadeeda iyo aqoonsigeeda iyo waxay dunida gaar kaga tahay inay u ilaaliso si ay uma jirto u noqoto marka ziyadatul الوعي بالذات إن لكبعيه ضدك إنه ذات دي سجران كرو إنه جران كرو وحب بلشات ككلك جسوا عينه مركا كسوة هوية المسلم زمن العولمة مركا نوجدنا مع عصر العولمة الله يرهده عولمة دو رياضا عصب الدبل جا استعمالي globalization كسوة حيكون شجانين وياهي وحرية المال والبضائع والناس والأفكار بين هذا حرية حركة المال وإن دونيد العقد صعون كرته ولا يسوق بين كراء أنا قيود حريسة شيرين بضائع دي برودكشن كبني آدم خصوص صارين اللي يسوق بين كراء آدنا هلفتي سوين يسوق بكراء أفكارتنا إن يسوق بكرته سكال هذا نوت المامنو وحي فكريان الحدود لغا طلابه إن اللونتو وحن لا يراده sovereignty ama siyaadaadka wadanadu leeyahay taa macnaheedu waxa weeyaan dunidoo dhan in la isu furo inkastoo bay leeyaan inay si cadaalad ah isugu furmin way dunida badhna duwalka waa maraakisti ama waa centerka dunida laga xukumo dadna waa atraafta dacallada peripherals waa hareeraha dadka degan waxaan xorriyada la siiyay waxaan oran karnaa xaqiiqatan waa dadka centerka degan inay dunida say doonaan u isticmaali karaan
ama dadka preferalska hareeraha degani iyaga aragtiyahooda waa la tashwiihiyaa oo iclaamka dunida dad baa gacanta ku haya badaa'icdooda waa la mamnuucaa productionka ay soo saaraan oo qaanuun iyo macaayiir ay dejisteen iyo nidaamka suuqa xorta ah intuba ducafada uma naxdo waa ka soo horjeeda sida awgeed bini aadamka socodkiisa qawaaniin alhijra alintiqaa'iya bay yidhaahdaan waxaa lagu xukumaa qawaaniinta loo dejistay soo gallootiga oo ah mid doorasho leh maalan afrika sanad walba waxay dhahaan 20,000 oo aqoon-yahan bay ka qaataan hadhowna aqoon-yahanada afrika ay u baahan tahay inta dib waxoogaa loogu keenaa 4 bilyan sanad kasta lagaga qaadaa kuwadana bilaash baa lagu qaataa waa qawaaniin saarim oo aan la ogolayn cid waliba inay soo gasho iyagu markaa globalizationku iyagu dan u yiyey dhankooda marka laga eego badaa'icdooda maalkooda dadkooda iyo afkaartooduba dunida way maanshaysay ama dunida inta kale waa marti haddaba haddaynu nidhaahno calaaqaadka aadanaha ka dhaxeeya wuxuu ku fiicnaa alinfitaax walmusaawaa in laysuna furan yahay nawcin maa is-ixtiraam iyo sinaan wuxuun ahina inay jiraan oo bini aadamku manaaficda isku weydaarsado iyagu waxay noogu dhawaaqayaan waxaa loo baahan yahay mujtamacaad munfatixa oo liberalah oo multiculturalism aaminsan dad furan oo iyaga agtooda alxurriya alfardiya ama identityga qofku uu yeelanayo si uu u dhaqmaya ka muhiimsan ka bulshadu ay leedahay haddaan si kale u tilmaamana dunida maanta inta xoogga badan ayaa khadito oo dejisa nidaamka tacliimiga dadka kale wuu qallitaa systemkoodii iclaamkana iyaga gacanta ku haya qaanuunka caalamigaana iyagaa dejiya international looga la sheegayo adigu waxba kuma lihid qolaa dejisa adigu waa lagugu xukumaa waxaan odhan karaa nidaam alxayaat oo dhan fi lcaalam qolaa marti loo yahy aqaliyadabana yidhaahdeen ama minority groups tira ahaan minority maaha laakiin technologically ama dhaqaale ama xoog ayay u bixiyeen dunida saddexaad xataa labaad maaha dunidaa saddexaad iyada waxa saaran bay yidhaahdaan laba miduun adawabaan inay milanto oo ka mid noqoto laakiin waa milan lagu isgumaysanayo ama waxaa ciddii awoodda ay ku dadaalaysaa alindimaaj maca xifdi alhawiya in bini aadamka loona furmo dadnimadaadana la ilaashado haddaba haddaynu cinwaanka sare sidaa u sharaxno hawiyat almuslim fi zaman alcawlama dunida ay isu furantay muslimku siduu u ilaashan karaa jiritaankiisa dadnimadiisa diinkiisa iyo caqiidadiisa iyo wuxuu rumaysan yahay valueskiisu aaminsan yahay awal waxay odhan jireen alinsaanu ibnu bi'ati bini aadamku waa environmentka uu ku koro bay odhan jireen laakiin inkastoo environmentku ama bii'adu ama deegaanku qofka bini aadamka uu raad badan ku leeyahay koristiisa iyo noloshiisaba haddana bii'ada dunidu bay yidhahdaan waa laba nooc waa bii'a tabiiciya oo tan naturalka ah tan deegaankaad ku nooshahay climatekiisa wuxuu dhaqdo noloshiisa qaabka looga nooliyey kaa tabiiciga ilaahay dadka u qaybiyeen ninba dunida meel ka degan yahay iyo albii'a alxadariya bay yidhaahdaan deegaanka civilizationku ama tamadunku ama madaniyadu ay leedahay oo ah bay yidhaahdaan cultureka bini aadamku uu leeyahay diimuhu rumaysan yahay afka uu ku hadlayo dhaqamada iyo caadaadka bulsheed qaab tacliimeedka wasaa'ilkan iclaamiga wax la isku gaadhsiiyo intaasi waa inta
transformationka ku samaysa qofka bini aadamka ama beddesha asal ahaan qofka bini aadamkii waa xor ilaahay ba subxaanahu wa tacaala xorriyad siiyey xataa rumaynta alle ayaa xorriyad loo siiyey inuu doorto alle iyo inuu diido laakiin xorriyadda abaalmarkeeduun inuu yeelan doono marka waa xor haddana waa mas-uulun can tasarufaati wa axwaali waxaa la weydiinayaa habdhaqankiisa iyo waxa uu sameeyo bii'ada uu degan yahayna wuxuu ka soo dhimbiil qaataa siduu u fakerayo iyo dhaqankiisa iyo bulshadiisa si ugu xidhan yahay calaa'iqda ijtimaaciga ee bulshadu ay leedahay iyo waxa allaaliya waxa noloshiisa ka mid ah waxaana yidhaahdaan markay isweydiinayaan oo miyaad tahay bay yidhaahdaan waxaad aragto iyo waxaad cunto iyo waxaad maqasho mooyaane ma wax kala tahay bay yidhaahdaan waayo qofka bini aadamka ah waxaan ku hareeraysan baa noloshiisa raadka ugu weyn ku leh cuquushu waxay taxliilisaa waxa ay siiso xawaasta dibaddu waxay dhegtu maqasho waxay ishu aragto waxaad cunto waxaas baa jidh ahaan aad ku kortaa oo noloshaada caafimaad saamayn weyn ku leh sidaad u fakeraysana saamayn weyn ku leh walidaalika bay waxay dhahaan qof waliba kayfkiisa gaarkaa godkiisa gaarkaa buu ku jira ummaduhu markaa si ay identitygooda u ilaashadaan ayaa guriga iyo dugsiga iyo iskuulka iyo jaarka iyo shaarican agagaarkaaga iyo masaajidka iyo wasaa'ilu tacliimka iyo wasaa'ilu liclaamka iyo nidaamka dowladnimo waxaasoo dhammi waxay u dhisan yihiin ummad kastaba inay u ilaaliso huwiyada ay leedahay su-aashu markaa waxay tahay haddaba innagu sidee baynu huwiyadeenna u ilaashan karnaa dadnimadeenna iyo diinkeenna iyo magaceenna saynu ilaashan karnaa waa haddii aynu alwacyu bidaat leenahay haddaynu is ognahay kaynu nahay isgaranayno u khatidno mustaqbalka soo socda waxaynu noqon lahayn u diyaargarowno dagaalka dunidu isku haysa aqoonsiga ah in aynu noqon karno dad mabaadi'dooda iyo dhaqankooda iyo diintooda iyo afkooda la ictiraafi karo identitygu waxay dhahdaan waa caqaa'idda dadku haysto mabaadi'da ay ku dhaqmaan bulsho ama ummadi khasaa'ista gaare ay leedahay ummadaha kale kaga soocan tahay innaga ka umma ahaan ilaahay wuxuu ina leeyahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ka umma islaamiya waxaad tihiin dadka kuwii ugu khayr badnaa ee ilaahay dadka u soo saaray dadka samaha fartaan xumahana waa ka reebtaan ilaahayna waa rumaysaan khayriyada ummadda tani waxay ka soo burqanaysaa oo ka dhalanaya gooniisutaaggeeda dhaqameed qaanuuneed shareeceed diimeed caqiido akhlaaqeed walidalik baa markay mas'aladu joogto identity ma aha waxa bini aadamku kala qaato ilaahay wuxuu leeyahay lakum diinukum waliya diin waxaad ku tidhaahdaa dadka diintiinaa leediin waliba culammadu waxay dhahdaan addiinu fi hada almawqic waa dhaqan oo dhan kiinaa leedin annana kaayagaanu haysannaa waxaa ilaahay inoo tilmaamaya keennu inuu dhammaystiran yahay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina waxaynu u baahanay markaa qofka mu'minka ahi ama ummadda islaamka inay caqiidadeeda xejisato intimaa u yeelato bini aadamku waa groupinga inuu groupkaa ka tirsanaado ku faano waxa uu haysto ixtiraamo qiyamka ama valueska ay leedahay xadaaradiisu iyo thaqaafadiisu kor u muujiyo shacaa'irta iyo astaamaha diimeeda lagu yaqaano xejisto waxa uu rumaysan yahay dareemo tamayuska ama soocnaanta uu kuwa kale ka soocan yahay fardan wa jamaacatan
كوكعه إنه مدى أنت كلا قارسيه الرسالة واجب التبليغ دينت إلهي سبحانه وتعالى وسور ديبي مرخاتنا كل نقضه ومضى ما أنت وحي نقول الله هذا بقى عالم يصفر مي قارضة دون دور من يصفر مين وعالم أفكار عصوبي وديمها لقسي حروبي يا إيتاغنتي وحلو أركا قضايات كفاليوز كي أخلاقيات كويني نسبيهين أو البني آدم كو حر ما يسنا قيم كو عالمي هينو ثابت نية وحسوغن نية هي عالمي نية كوري وحي كنا واقعيا ووح نسبية ما هو وحي يونيفرسالا وأركتيا كو كورية ميلا أما حاضنات ألا دينية وألا أدرية وألا أبالي بين هذا ميلا أن دينت الله هيسنين وما أنت الدنيا وحا آدو بدن دلين يرد يوروب جوكتا وحي دادان حسايا دادا دنبه بولكي بطو دباتن وحبا مرو ما يسناد دائير كاستقالي اللي باتن شركير دائير كاستقالي اللي باتن شركير إله مرو ما يسنا ما وحبا مرو ما يسنا وإيثيسم داد كان إيثيسم كعض هيسانينا وحي هيستان بيدا أباثيسم كو ولا أبالي وسيدي أن إله جرين بأنولي يعني مسألة دا فيلسوفيكالي كمر من مايو لكن دقن كيسي قاب كو أنولي هاي وقاب أن ديني كجرين قاركود وأغنوستيكس ولا أدري كوي هورا وحي لها إله مجرى كوري وحي لها إنو جري إنو جرين بموغن إنو جرينا قران مينو إنو جرينا قران مينو قاركود واسكبتيس ومتشككين قاركود وحي مسيين وفيلسوفرسكودي ووينا كميدي بانثيسم ووحدة الوجود إلهي كون كوينس كميديهين أفكار تاني ولقيت بالدنيا دا ويسوي شوكتي ما عصبا لكن واجه هورا وحي هانجرتي قوبها فلسفة دايو داديو فيلسوف الرأيو dad farakutir siyaahi waxay rumaysan laakiin maanta waxay taa kaga gadisantay afkaartu ma cusba laakiin maanta waxay isu bedeshay inay diin caalami laga dhigo waxay tii hore kaga gadisantay awalba falsafada waa lagu dhigan jiray taariikhul adiyana waa lagu arki jiray taariikhul falsafana waa lagu arki jiray laakiin waxay hadda kaga gadisantay waxa loo bedelay umamkoo dhan in laga simo وحتى الله بلابين عرورتا يرير رغو تربيه إن بوكس لو قرأ أول بوقت دي فلسفة دا لو قرأ دادك أهل العلم قاية دادك سيني دوضاها قلان هذا وحا لوغو تلقلين لغو تربيه يا عرورتا بوقاك عرور لو قرأ ومثلا أناك هارس بوقا دا أنا أتساءل أحبار سويدينية وإلحاد أيلين عرورتا لوغو تلقلين وحي قادين أي قرآن وحي مكوية قانين دوميس بوكس والله الساينس كأول واحد يقول جرين كتب الأغبياء وحلا ينادوا يعني علوم تبوغاك فضايدي سه وفني كستو كوكو أتكادا هذا دوميس بوكس يبسطه سي بسيطة الله شرح يا مركي بوات فهميسه مركا وحيد كتب الأغبياء وقوليها أن أكاديميك الرباين علوم تشلعيان أي كتبتن أضغط أنت لقيت جايبة كتابة وحلا قري سفضت وهذا إمكانياتك كله فتو دمس بوكسك فني جاءت فهمي كيري وإذا واحد ليس صد حفر شنبوك وإذا هذا غبية ضل لوجو تلقى لي وهذا مركب فهم إيشه ده تروح القرآن The Young Atheist Handbook واحد مرتد إن أسأل كيسي هراها بنغلاديش ألوم شاها أيها قرآن تكس بوك عيالك اللديتك عيال كان إلهي الربع سنين بالربا تكس بوك لو قرأي حيسان كران مركزا Humanist Association كان إنجليز BH كوانا يلهدان نا إنتي بديين أي وحلالية وحسكندري سكول كويا له
ingiriiska intiisa badan England iyo Wales Scottishka marka laga yimaado inta kale waxa ku yaala ayaa loo wada qaybiyay waa caruurta oo dacwa loo furayo ah in la gaarsiiyo diin la'aanta markii ay dhacday 11 September wixii ka dambeeyay dawladda badani waxay u janjeersadeen inay diimaha la dagaalamaan saadaradeed barnaamijta idaaciga ee fadaaga ka baxda ee dunida oo dhan loo iclaamiyo iyo waraysiyada jaraa'idku qaadaan iyo waxa loo badiyay dadyawa ku caanbaxay atheismka qoyaanada jaamacaadka joogay ee waxaan rumaysnaa ayaa loo sameeyay talmiic in la soo caanbixiyo dunidu barato maalin walba usbuuciiba mar in waraysi laga qaado mid iyaga ka mid ah oo barnaamijta ugu caansan markaasi uu ka soo baxo intay soo dhaafiyeen ayay urur diimeed noqdeen hadda urur diimeed Atheist Alliance baa la yidhaahdaa Atheist Alliance International sanadkiiba mar bay isugu yimaadeen atheiska caalamka oo dhami magaalooyinka waaweyn ee dunida mid ka mid ah bale kursi baa laga siiyay goobaha diinta xiwaarul adyaankan ay sheegaanba kursi laga siiyay bale ingiriiska maanta waxay ku leeyihiin kiniisado diin laawayaasha waa kiniisadada non religious churches bay yidhaahdaan kiniisadaha diin laawayaasha oo khawaar ruuxiya iska haya markaa meel intay isugu yimaadaan ayaa waxoogaa heesa loo saaraa la boodboodsiiyaa sidii intii ay kiniisadu samayn jirtay maalinta axad oo kale wax u dhigma in loo sameeyo oo waxa la yidhaahdaa waa non religious churcheska waxay leeyihiin iclaamaad dadka loogu yeedhayo maalan basaska London dhex mara baskan cad ee labada dabaqaysa saarka ah waxay u sameeyeen iclaanaad dhinaca kaga dhigsan oo iyagu lacagtiisa bixiyeen oo la yidhaahdo there is probably no God stop warning and enjoy your life bay yidhahdaan hubanti ilaah ma jiro warwarka jooji oo noloshaada ku raaxayso ayaa dhinaca kaga qoran baska dadku fuulo yani waa diin la faafinayo waxaan weedhaha kan idinku tilmaamaya waxa weeyaan caalamka duulaan xoogan baa ka jira oo diin ah ilhaadi oo la faafinayo oo da'yarka iyo dadka akademiga iyo dadka soo socda lagu faafinayo insaankuna asliyan حاجة الانتماء كما مارمو إنه عد كتير سناده لكن سؤال السويدين تلو حويان تتك مسلمين تنتي فيجيين انتبا دتكو دا أكاديمي كامر دل يرضى جامعات كدكتا أي أصول دينهم سوين انتبا دينتو دا كجاهليين أما سي أي أقونوا لي دينتو هورتو وقو ماها dhaqamadan reeru iska haysteen iyo meelaha kan inta ma aha inta dooda lagu galo ama mabaadiida lagu xijiyo ama shakiga la iskaga ilaaliyo waxaad u baahan tahay aqeedadaada inaad si dhaba u baratid waxaynu soo wada haysanaa inaynu diinta naqaano laakiin way yartay waxaynu ka naqaanaa kitaabullahi wa aqaara kabiira masaaxat almuktashafa cindana aad bay u yartay sida awgeed أسئلة الكبرى وين نجاوبها لا فلسف كبني آدم كوكمرنا حقان كايني حقان كصعدة محانا حي دوني محان كقبنية وسؤالها أي فلسفة دورنا بكور يكتو علماء عقيدة الإله كور ربعنا بكور يقان علماء نفسي انتو بدنا يكور يقان علماء الاجتماع يكور يقان حقوقيين تو يكور يقان إن لحددكم أعطي marka darsigu wuxuu ku saabsan inaan baranno inaan tahay insaan muslima oo Soomaaliyeed waa leeyahay iskala hooseeya leeyarka ugu sarreeya waxaan leenahay insaan baan nahay xadaaradan dambe ama madba aan idin sheegay bini aadamka insaannimada uu ka saaraya dad akhridaan kutubtan ka warramaysa usul al-akhlaaq iyo mawqif al-malaaxida iyo waxay ka taagan yihiin waa inay values kala dagaalamayaan bini aadamkuna values ku kaga soocan yahay xoolaha hadduu values ku lumo مثلا values ka ku saabsan guurku hadduu lumo oo la yiraahdo dadku sida xooluhu mushaac yahay ama dadka iyo xoolaha isguursan kara
sida filosofkooda akhlaaqda waa falsafat al-akhlaaq professorka dhiga ayaa taa rumaysan dadkii xoolaa in la isku daro marka hadduu valuesku dhinmo la burburiyo bini aadamnimada lafteeda burburaysa dadweynaha diimaha rumaysani waxay isku raacsiisan yihiin in valueska bini aadamnimada la ilaaliyo kow markaa waxaan leenahay insaan baan ahay insaannimadii waa laga soo horjeedaa dad waxaa u dagaalamaysaa inaad bini aadam noqoto oo valueskii aadamuhu uu hidiya dhaqan u lahaa ilaa nebi aadam ka soo bilow bini aadamku nin iyo gabadh buu ahaa usro kale ma jirin maanta si qaanuunka caalamiga waxa lagu daray usradu inay intaa ka badantay usrada waxa la yidhaahdaa maxaa reer la yidhaahdaa nebi aadam laga soo bilaabay ilaa hadda bini aadamku wuxuu yaqaanay reer in la yidhaahdo maxay nin iyo gabadh socanka maaha haddase united nationku wuxuu qoray iyo waxa dunida lagu faafinayo iyo dawlado badan oo dunida ka mid ah waxay qirteen waxa weeyaan reerku inuu intaa ka badan yahay laba nin baa reera laba dumaraa reera dad iyo xoolaa reera wixii la doonaa reera hadda wixii la doonaa reera idan waa valuegii bini aadamnimada oo laga tegay diin weli maynan ka hadal waa valuegii insaaniga ahaa ee abin can jaddin aadamaha inta taariikhdiisa la haya lagu hayay oo la tilmaamayo inuu qaldan yahay marka waxaan leenahay insaannimo bini aadamnimo identity abaa dunidu u dagaalamaysa hadda mar labaad gruubka insaannimada aqbalay waxaan kaga gedisanay inaanu muslimnay inaan ilaah rumaysannay oo aakhiro rumaysannay oo rusul rumaysannay oo kutub rumaysannay oo alqadaa walqadar rumaysannay kuwa rumayntooduna adilla caqliya iyo cilmiya bay u baahan yihiin awal waxaad ku noolayd meel dadka kula joogo dham islaam yihiin waxaad ku noolayd meel su-aasha ah ilaahay ma jira mise ma jiraan cidiba isweydiin ee dadku ku wada qanacsay in ilaahay jiro meelaan su-aasha ah la isweydiin ilaahay rusul ma soo diraa mise ma soo diro in rusul ilaahay soo diri jiray ay jirto baad rumaysnay meel baad ku noolayd aakhiro aanay questionable ahayn meel baad ku noolayd ahayd maxay kutubta in ilaahay soo diray imika kulluha calaamatu su-aal baa taagan waxaana taaganaya dunida isu furantay iyo dadyawga mabaadi'dan qaatay oo diin ah oo faafinaya oo idaacada leh oo tv leh oo academic schools leh oo wax walba leh oo dawlado waaweynina ay taageerayaan waayo qaybaha hore dee dawladaha yurub qaybo ka mida baa madaxdu aanay ahayn kuwa bini aadamka ka baxay ay yihiin aan sheegayo valueska bini aadamka kuwa dhaafay bay ka mid yihiin madax badan madaxdaasi waxay qaateen wadannada qaarkood in lagu qasbo tacliinta laga soo bilaabo kindergartenka ilmaha yare 4 jirka ah baa loo bilaabaya wadannada badh in usradii la bedelay in la dhigo oo la yidhaahdo ardaydan yare kalaaska soo galay kana laba aabuu leeyahay kana laba hooyuu leeyahay kana aabiyo hooyuu leeyahay markaa dadku inay caadi tahay oo ilmuhu la soo qabsado isagoo jooga kindergartenka aan iskuulba soo gaadhin waxaan leenahay marka hadda dhalinyaro badan baa jiro ka murma meelaha kan ee facebookyada iyo waxoogaaga kan soomaaliduna waa dad warka aad isu gaadhgaadhsiiya weliba waa dad xataa hadduu shakiyo shakiguu faafinaya war bal horta meel gaadho markaad waxuun ku qanacdo faafi markuu shakiyo shakiguu faafinaya waxaan leenahay marka islaamnimadeennu waa inay noqotaa islaamnimo cilmi ku salaysan kitaabka qur'aana arkaanul iimaanka aan sheegaynoo dhan adilla caqliyuu ku sugaya idinku waxaa u haysataan ama dadka badh waxay isaga haystaan adilla samciya inuu ku sugayo war qur-aanka dad gaalaa baa lagula hadlayay qur-aanku markuu soo degayay muslim qudha lamuu hadlayne gaal baa lala hadlayay qur-aankan baana islaaminayo lagula hadlaya isagaanay ku qorantay markaa daliilka caqliga ahi daliilka caqliga ee qofka lagula hadlaya isaga ku yaallay laakiin wuxuu inooga baahan yahay baxthi iyo baadhitaan waxaan leenahay markaa insaan muslima
والصومالية صوماليا محانو لهي صومالي نمضو وكالجر يأف يمكن واحد مودا أفكا صومالي قوينو سير لمن يسي صعوده إن نوقع ظني وحيابا يروان بورين إن نوحوين مود نو أففك كلينا أفف ووين يهين أففك أفكي علمي لغو قرانا وأف علمية دو نقضة أفكي جهلي لغو قرانا أف جهلية دو نقضة ده أفكينا علمك قرطانا أف علمي صباحية هديون جهلي لغو قرانا أف جهلية بصباحية سأوقدو حلنا هاي عقيدة هاي السنة كون كاما يونيفرس كاركتي كاسينيس قفك بني آدم كاركتي كاسينيس نولش أركتي كاسينيس ماشى لغو دنبين دونا أركتي كاسينيس تاريخ دا آدانها أركتي كاسينيس مستقبل كآدانها يحقوا صعدنا أركتي كاسينيس ولذلك ما إلهي النبي قوح كله عليه الصلاة والسلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وعطر هذا صلاة دايدة هي نسكيك عبادة دايدة قورة عيقة نولو الشيء دي قيري دايدة لله رب العالمين عقيدة مركا والركن كوكوادة قفك أيضا تتيجيس شاكتا عقيدة وحا كردن بالما وحلا إذا الولاء والبراء والشيء يعد اسكو بهدتين مركا باب كان شوكتو يعد كلا بهدتين شيء يا انتماء وعدو كتر سنة هي يعد أنا كتر سنين معتقدكم مركا بلشكسته يومت كسته وحو أصل هي أيضا تتقاه يسطه هدو معتقدكم الحادية هنا أيضا تتقاه هدو عقيدة إلهي الرميسية هنا أيضا تتقاه واسلوية لغضو ثقافة هذا أصل الطهي وحاد رقم يقابنا لوليت سيتو سوقت وحن لنا وين نكلا قرنا محب بني آدم كو وداقه أو كلا قاطه حنسل وداقين ضدك أنا هيسنين موازين توحلقو قياسا وحي مودانكي كالتكنولوجي سرية وحوال بينو كسرية مردو التكنولوجي سرية هي إنو وحوال بهايستو وحنا كبتشرا تكنولوجي نولشو فضيدية قفك بني آدم كان نولشيسو فضيدية لكن قفك بني آدم كان سيدو فكريو يوحو الرميساني إيا قلبي يسوحا كتشرا وحركة مطرو ولذلك ضدك الشباب ثقافة الغالب بيقاتان إنك حوق بدن للثقافة دي سيسك قاتان لكن ضدك موازين تهيستا صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بادية كوكورين ميلان وحبا أولين بيشوغين علم هرم ما يهيسنين لكن عقيدية الدين بيأمنين عقيدية الدين تسوحي كدكتي إن يسوء أركان أساتذة العالمين وهي رسالة السماء وحي السماء أقونت وحلا إلى ولا بوحة ويدا هذا وأقونت عركة كسود دكتي أنبياء الله صار شيء يا أقونت كسابسن كون كان دراسين تيس أما بني آدم هلا دراسية أما مادة هلا دراسية كون كدراسين تيس تصمد كتما دقف مله إن هذا دو سقل دنو فهمت مو يعني تدوني ذا كتما داسه وتراي أنيرا وواحد تجابي ولا قلدم ولا تجابي ولا صحو واحد دوني ذا آدنه سميا وواحد لك على نحله ومدبا يكدول للسنتي هدي كو هوريلا واي لها كوان دمنا ما جوجين يعني تكنولوجيا يوروب ما جيرين هداني حضاره دي مسلمين تصامرين حضاره المسلمين تو وحي براكتيكال كو سابسنين بدرو كميدي ما جيرتين اما way gaabin lahayd hadaanay xadaaradii hore ay soo naqliyeen ka jirin bini aadamku wixii bini aadamkii hore sameeyay wax ku sii dul dhistaa saasaan u socdo laakiin marka ay joogto maxaynu qaadanaynaa maxaynu si ka tagaynaa waynu kala garanaa يسوى قادرنا وحي قضية علمية حقائق علمية وحي نقضة لكن قادر ما إنه values كي رقم ماذا خلاف سن كتاب كي سنان هاي سنة منفتح وان هاي
وتجارب بني آدم كوحي فايدة لو قادنا، لكن منبطحين منهن ودتك اسكما دبصوا عنه، مقلدين ومنهن مركي اعتماده في باب العقائد والتقاليد والأحكام مركي شوكته هي قوانين مركي شوكته. ولذلك با إلهي القرآن كوحي نوت المامية آدنوه إنو كلا قد السنان كره وانا نبحين. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شعاركم ووحن لقاطه سلوغن اسك بني آدم قاطه سلوغن اسك محل لو قاطه للتميز. مثلا askartan inala joogtaa imka dreeska la istaata dreeska maskaxdeena wuxuu sheegayaa markaad qof dreeska istaata aragto waxaad garanaysaa inuu yahay maxay ciidan inuu yahay baad garanaysaa. khamiiskan iyo intaan aan sita markaad aragto inaga culture-keena marka loo eego markiiba waxa kugu soo dhacaysa kani waa wadaad, yani maradan baa sheegaysaa, maradan baa waxay ka tarjumaysaa dhaqan. walidaalika waxay yidhaahdaan لباسك هو مظهر من مظاهر الهوية بالله عقيدتك كاله مرض الله حدا وحي كتر جنتا بني آدم كهوية ديسة أيضا تتجيسة بعد سوعي سيا قون سجيسة أي كتر جنتا. مثلا قفك مسلم كا مرولية مرض قفك مسلم كحدا وين يساتر نغطاه ومرة شركة أسطرته ومرة طاهرة النجاسة اللي إلى لي وامرأة أنيق وقفكو كحر غوريو إن الله جميل يحب الجمال. لكن مرض مركي أنت أصوص فوضى يالته أشكالك كسيد دنبايا ثقافات قومية ويا وحضرك دونتا مركا حجاب باكستانية هي حجاب صومالية هي حجاب عربة هي حجاب وحيبة حجاب أنت اللي الربي ويسمية. لكن كاني identity إسلام نما وضحيستان لما أنتود وحيسكوا كلا قديسين يهين محل إذا وحيابا قومي يقولين بدن كوساليسان climate مثلا دتك دولك قبوبة دجن ده هو دوا دول ودر عددك دولك دتك قبوبة دجن هو دو عد كليلا دجن هو دو عدام بو بدن يهي وحين مرك علينا هاي عمامة سيدا الله حدين سيدا يمن تادو حدتين تسع عمان تو حدتين سالحية دينين ادو حدتا بشكل ما. لكن وحيلين مرضو ومظهر اما ومقال لدى ايدن تتيجا كمدا سكال هدانو تلمامو وشار ربيدا واستان هوديل هداد سوق شوي مكود عنا يستر هذا الدلبو ريستورانت واحد يجي سقف دريس جارسته وهي علامة إن مرة دل عسر بودي ومغيانو لا أيضا تتكلم بتليسا مركا أيضا تتكي سلام لماذا هوا كسي صعطة وعكلام بتليسا تلا النبي محمد وحولي تما بدناها حيرنا عليه الصلاة والسلام بدناها الله هدنا غير بادية هني الصوماليات ما دام أنك فردا يو حاسب بدنين بيا بدنا وحلقهم ما يداشرين عرفت تما ويكحيري شري لكن هذانا إنك يا إن أنت تصلوا كلا قرتابي وسبي شري إن أنت تعرف فود يربى لور بيشرو وفود ليبى لور شري إن أنك ردور بالله سبي شري قلاد غير مجال كي مركا خير الدبدة كي بدو حريص الوركين هو دور يعني وقلادي هوت ككتمية ولو حليه تمية إما كان الدور كي بحر رقم هوتين يعني شالي تدور روحها عاي waxa loo arkayay in yaro baadiye ka yimolita maxaa doorkii shalay taa caayda ha ka dhigay maanta waa idanta tigaynu luminayna shaqa ahaan waa shaqa fudud waxa aad u sii weyn maaha inkastoo diinta ka soo horjeedo laakiin waa astaan buu wuxuu yahay dadka xun calaamadaha qaataan galbeedka deegaa qaar ka mid ah calaamadaha iyo maryaha iyo waxa haddaad aragto waxa astaan u yahay group ideology aaminsan waxaad arkaysaa dad Soomaaliyeed oo maryahoodu noocii waraduna goormad kuwan ku biirtay maba oga laakiin waa uun maadaama ay galbeedka ka timi isku dayay inuu qaato nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibr wa dhira'an bi dhira' حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم أو لدخلتموه
قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن نبي عليه الصلاة والسلام وحط المامية كويدين كهرية ودوين كودي بالراعسان تاكا تاكي يردودون باو راعي دونتان حتى هدي قد مسلو قلي قلان وكذا بقلي دونتان قد مسلو قلي ما مساع قلي ما همال قرح له ما همال وناق له لكن نبي مثال وحوق بحيي سيد الله قادن دونا وحن معنا نولش كلهين قد مسلو قلي إن لقال هذا وح معنا السمين يا ماها ما كان دركتهم مد مرية شيحن ستة شيخ عبد الرشيد على الصوفية محاضرة آخر اليويل الصومالية يوروب كا سروال شيحن ستة يسوتها جي وما كان ربينه وحويديه رسول حلو ولا الله يلي ترى سؤال شكل جوابي ولا الكين مردي سوي دلع سنته وعن واحد سقود الربيع سروال في عنا ورقدناه أرنتي وعقلك الصومالي يسوي شيء جيو وايو مرض هذه أنت بودتك صود الدلاع سو عورض هذا موش سو إن هذا دنا كحرقوتا أيضا تتجاج والله سكريسي ويا مرض الدلاع سنقف قادن كره هلك كان بركين يشوفونه dadka waalan astaan baynu ku naqaanaa haddaad aragto maryo dildilaacsan nin sita oo timar raama leh timihiisu raamaysteen oo meel fadhiya waxaad garanaysaa nin maanka lagaga jira inuu yahay waxaanad u arkaysaa waxun laakiin markaad aydhanta tiga lumiso ee aad wax walba raacayso tv-gu maad ka arkaysaa mid raama leh oo maryaa dildilaacsaday oo boodboodayo laleeyahay waa xidigii kubadda cagta ama waa heesaagii hebel ahaa ama waa bob marley ama waa kan waa michael waa wax qariib ah dee intii baad adna ku dayanaysa beri baa magaalante dabeetana niman dhallinyaraa baan waxoogaa u akhriyey markaa waqtigii michael jackson uu dunida calanka u sitay heesaha michael jackson baa wuxuu soo xidhnay surwaal bowdadiyo inta tan jidhka ka balaqbalaqsan oo aad u ballaadhan canqowgana kor uga qaadan oo sunnada waafaqsan intan aynu u tolan lahayn malaa duniduna markaa waxay qaadan jirtay surwaal dheer oo dhulka jiitamaya nin dhallinyaradii ka mida surwaalkii soo xidhay kaasoo arkay anigoo eegayo sheekh waa mooda maca sunna buu yidhi sheekh waa mooda markii hore sunnada lama qaadanaynin laakiin markuu michael xidhay ayay noqotay mooda maca sunna yani waxaan uga dan leeyahay qadiyada jirtaa waxay tahay hooyada qofka hadduu lumiyo si fudud buu markaasi u milmaya waad milmaysaa hooyadan rabnaa waa maxay aad lumisay waa الاعتزاز بدينك وبعقيدتك وبمبادئك وبالكتاب والسنة وإن تكفانته موجستد إن مسلم تهي إلهي محولي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يا كور في عمبا إلهي إلي كدتك الدين توقيا له إيساقنا دقك ونكسن كفانا كبير له وروه ينقو مسلم كان كميدا هيكون واقعيا يعتز بديني اعتزاز بنادم كو قلبي كو كتشبه هدي مركاسي أيضا تتقاقا ولموه oo ah aqaaidii oo ah akhlaaqiyadkii oo ah valueski oo diintaadii iyo dhaqankaaga iyo thaqaafadaadii iyo afkaagii hadday lunto dameeridhaan raacday baad noqonaysaa markaa waxaad aragtaba cid ku dayataad arki doontaa markaas oo ilbaxnimada u haysata oo kule waa modernization waa xadaatha waa maxaa la yidhahaa casraaniya adigu wakhtiga lama socotid wadaad waxaad joogtaa qarnigii 14 baad adigu nooshay qarnigii 14 ceeb maaha waxaa ceeb ah dadku inuu dadnimada iyo bini'aadamnimada ka lumo qarnigii 14 hortiina dad fiican baa noolaan jiray kuwa dambana dad fiican baa zamanku maaha waa bini'aadamka iyo values ku haysto bini'aadamka iyo values ka u haysto weeyaan caalamku maanta wuxuu xidhxidhan yahay dad badan inay dadka diinta ka saaraan إلهنا القرآن كيسوي وحكولي ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا إن بدنوا أهل الكتاب كم يدي وحي تعلين دينتي نينا إذن كساران وقالا إذن كردقان حسدا من عند أنفسهم لكن يمكن يجينا ولا كسارا يبا نين شيخ الصومالي هذا
jaamacadka reer galbeedka jooga wuxuu yidhi jaamacadda markaan soo galo oday kristanaa jooga buu yidhi odaygaa sidaan walaalanaan laabtaysa saaraa buu yidhi waayo inta kale brofesoradu ilaahayba ma rumaysna buu yidhi marka kanu yani kan bay isdhawaysteen markuu u arkay dadkii kale halka ay sii marayaan ayuha alaxiba waxaan leenahay waxaynu u baahannahay dhaqankeennii afkeennii caqiidadeennii diinteennii inaynu ilaalinno inaynu da'yarteenna yaryar ku soo rabayno luqmaan inankiisii markuu la talinayay wuxuu uga bilaabay ilaahay ninka luqmaan la yidhaahdo oo xikmad lagu tilmaamay oo laynoo soo naqliyey xikmaddaa wax ka mid oo ah ilmihiisii uu la talinayey ilmihiisa talooyinkuu siiyey 3 shay bay ku koobnaayeen caqiida oo uga bilaabay ilaahay inuu baro inuu cibaadaysto rabbigii caabudo iyo dhaqan fiican inuu dadka kula dhaqmo intaasuu kula talinayay وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله المهيجي يرايو إلهي وشريك يلن سببت وامحي إن الشرك لظلم عظيم شرك هو ظلم وين وعدالة درده وين هذا ما أنت النول حقوق ما مقشان سماها حقوق دا حولها حقوق دا درتا حقوق دا بني آدمك حقوق دا دمرك حقوق دا عرورتا حقوق دا كذا وحقوق دا إلهي كورمية ماركتين بسبب خلوقاتكم بحقوق لا إلهي حق ماله إلهي بقى حق وين حق يصير وين عبده سيدا وجد باللقمان وحوجا بلابي المهيسي إنه عقيدة ده الصحة وأشياء جنا حق إلهي إنه يهين لعبده أو أشياء جنا الظلم تو إلهي حق يسال الظلمين أيه إنه شريك ياله ده بتنوع وصيت الماما لو حلا إن لقى بلابه المهير إلهي أنت وحبرش الصعطة أصل كوحبرش هذا وين هوية مجتمع على السوق دونيدا وزارة ده وحبرش هذا شقد كوادا يقبتوان محي وأمد هوية دينا إلى السوق كدي بين التعليم كوقدرته أنت بدن جامعات قالوا قلت لك على علمي جي بحثي جي وحبرش هذا رسمي جا tani waa training hoose oo bulsho wax wada akhrido bulshada ka tirsan in la soo saaro ayay tacliintan hoose oo dhami tahay laakiin muhiimadda koowaad ee waxaas oo dhan ka weyn waa inay bulshada identity-geeda ilaaliso ummadaha haddii ay homogeneous group noqdaan dad afkaarta iyo dhaqanka iyo caqaa'idda isku waafaqsan maamulkoodu wuu fududaadaa haddii uu khalkhalku tiro batana ummadda waxa adkaata sida loo maamulo Soomaali waxa idin maamulkeedu fududaado laakiin laba mushkilo yar oo ay leeyihiin baa wali loo taaglaayay mushkiladda qabiilka ku saabsan iyo mushkiladan faqriga iyo balwadda ishuwan ku saabsan labada mushkiladood Soomaalida mushkiladeedu wixii inta ka sarreeya waa jahli aqoon darro aynu dunida sida wax loo noqdana inaan aqoonin haddii la murmo sida loo xalilana inaan aqoonin xabad mooyaane waxaan u malaynayaa waqtigu inuu iska gabagabayay mala salaadkiina soo dhowiyay waxaan isku dayayaa inaan iska koobo dunidu maanta way isu furantay nin walibana ceesaantii buu ceel keenay cid waliba inay afkaarteeda faafisaabay ku tala gashay cid waliba miisaaniyad iyo akademiyo iyo aqoon-yahano iyo waxbay u diyaarsadeen waxooda inay wadaan innaguse waxaad moodaa inaynu dayacannay waa caalamul islaami kow ciddii maamulaysa iyadu waxay rumaysnayd bay la dagaalantaa caalamul islaami dowladaha ka jira waxa koowaad cadowga koowaad diintay u arkaan cadowgooda koowaad diin bay u arkaan aqoon-yahankoodana xabsigay ku hubiyaan oo dadka ugu dunida kale mujrimka la xidhaa caalamul islaamigana aqoon-yahanka la xidhaa inta wax garanayso baa xabsiga lagu guraa ummad mujrimkana sii daysa inta wax garanaysana xidhaa dawa ummad meelan dhaweyn ku socota marka waxaan idin soo jeedinay wax weeyaan wadankan aynu degannahay
idinka waa aqoon-yahanoo dadkii u soo baxayaya haddii idinka identity